اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa halkan idin kula wadaago imtixaankii 2019 imtixaanka qayb ahaan hore waynu uga shaqeynay laakiin uu faahfaahin mu lahayn jawaabaho degdeg ah ayaan bixinay marka halkan qaybtii uu ku soo celinayaa qaybtii structure-kan inaan raaciyaan doonayaa wax kale oo rabaa inaan yara faahfaahiyo oo sharaxan ku yara daro marka wixii khaladaada ama wixii ra'yigaad u aragto kulay waxaan jeclahay inaad nala wadaagto hadii Ilaahay qadaro imtixaanka ayaan rabaa inaan hadda inoo bilaabo. imtixaanku waa Somaliland National Examination Board Form 4 Physics Examination waa June 2019. su-aasha qaybta koobaad oo structured question ah waa multiple choices. su-aasha koobaad waxa lagu yiri force 17 newton ayaa acts on a block of mass 4 kg waxa uu force kaasi la kulmay ama uu action ku sameeyay block 4 kg. force ka friction ka soo horjeeda ama force of friction ko motion kuna waa 5 newton. waa maxay acceleration ku acceleration ka waxa lagu helaa resultant force ka oo loo qaybiyay mass-ka marka resultant force kuna hadii jeer labada force object ka ku kulmay hadii kala jeedaan waa la kala jaraa 17 newton baad 5 newton ka jaraysaa waa 12 newton 12 ka afarta u qaybinaysaa waxa ku soo baxay 3 kg marka jawaabtaadu waa B-da. su-aasha labaad the gradient of velocity time graph represents gradient ka velocity time graph ku muxuu taagnaa marka su'aalaha marka qaar baad ka maarmi kartaa waa inaynu garanaa changeerka velocity time graph ku wuxuu taagnaa acceleration ka changeerka distance time graph ka laftiisu wuxuu taagnaa speed ka changeer waliba wuxuu taagnaa inaad xifdisanto batan oo kala ka kaafin karta marka jawaabtu waa eeda. su-aasha saddexaad waxa la yiri projectile is thrown at an angle of 30 degree. projectile baa loo tuuray xagal 30 degree to the horizontal marka loo eego line-ka horizontal line-ka isagoo lagu tuuray xawaare bilow ah ama initial velocity 50 meter per second. vertical component of the initial velocity is waxaanu garananaa markasta oo projectile la tuuro projectile ku laba motion ayuu lahaa ama laba component ayuu lahaa vertical component oo loo qaato uy iyo horizontal component oo loo qaato ux. waxa la inaga doonayaa marka waa vertical component. vertical component marka saynu helo waxa jirta qaacido in orange vertical component ka velocity-ga waxa lagu helaa uy equal u sin theta. uy waa vertical component of the initial velocity. u waa xawaaraha lagu tuurayo waa 50 meter per second. theta na waa 30 degree marka inta markaad ku bedelato u dina 50 sin theta sin 30 sin 30 marka waa 0.5 inkastoo ay ku fiicnada in la inasiyo 0.5 ki iyo 50 ga ayaa isku dhacaya waxa ku soo baxaya 5 ama 25 marka jawaabtu waa B-da oo 25 meter per second. su-aasha afraad Asha runs up a flight of stairs. Asha waxay oroday jaranjar in the figure as in the figure sida shaxanka kaaga muuqda ay jaranjar kor u fuushay. what will happen to her gravitational potential energy maxaa ku dhacaya gravitational potential energy geeda waxaanu garanaa gravitational potential energy qaacida lagu helaa oranaysa mgh maska oo lagu dhuftay gravity oo lagu dhuftay height ka marka haduu mass ku kordho gravitational potential energy uu kordhaa haduu height ku kordhana gravitational potential energy uu kordhaa gravity laakiin waa constant halkan kor bay u fanatay baa lagu yiri meel maana marka height ki kordhayn gravitational potential energy inuu la kordhaya marka jawaabtu waa eeda waa increase. su-aasha shanaad which property of waves is illustrated by the diagram waa maxay astaanta waveska ee shaxankan ina tusayo haddaad aragto waves meel daloola ka baxayo kadibna baahaya waa gadaal baaha waxa loo yaqaan waa diffraction marka jawaabtu waa diffraction weey. su-aasha lixaad which of the following properties belongs to sound waves astaamahan midkeebay sound wavesku iska leedahay. sound wavesku ma transverse wave ba can travel through vacuum meel maran ma dhex mari kartaa need medium for travel medium ay u baahan tahay dhex marto yani goob particles leh ma electromagnetic waves ba marka tan oo kalena waa jawaab xifdigaaga la xidhiidha oo ah need medium for travel. transverse wave maaha vacuum kama dhex mari karto electromagnetic waves na maaha.
su-aasha toddobaad in radio reception system nidaamka helidda radio waveska the process of removing radio frequency carrier from audio frequency signal is known. habka lagu kala saaro radio frequency carrierka iyo audio frequency signalka waxaa loo yaqaanaa modulation, demodulation, encoding, transmission. jawaabtu waa demodulation. habka la isugu daro eeg receiverku radio frequency iyo audio frequency gu kala saaraa oo isagu demodulator buu leeyahay. habka uu ku kala saaranayo demodulation baa la yiraahdaa. Transmitterkuna wuxuu isku daraa radio frequency iyo audio frequency oo isagu modulator buu leeyahay. marka habku isugu darayna waa modulation kii bay noqonaysaa. kan marka waa demodulation. haddaad receiver ba maqasho ama reception ba maqasho demodulation buu leeyahay. su-aasha sideedaad graafkan halkan inoo yaala muxuu inoo muujinayaa? wuxuu inoo muujinayaa analog signal markaynu soo gaabino oo analog iyo digital ayaa labada signal kala ahaayeen. marka analog signal ayuu kan inoo muujinayaa. su-aasha sagaalaad in the nuclear reaction falgalka nuclearka waa helium plus lithium equal waa hydrogen plus lithium equal helium. qiimaha x baa laynaga doonaya. marka haddaad u fiirsato qoraalada halkan ku yaala laynka hoose qoraalada inoogu yaalaana waa atomic numberskii, xagga sare waxay inoo yaalaana waa atomic masseski. marka la doonayo in lasoo saaro hal xaraf oo kaa maqan laynka hoose waxaan jeedaa laynka uu ku yaalo ayaa toos loo raaca. hadda mass baa inaga maqan, masskii lithium baa inaga maqan. marka midiga bidix baa la isku leekaysiistaa. bidix waxaa ku yaala 1 plus x. waxaad leedahay 1 plus x waxay leeg tahay bidix waxaa ku yaala helium oo tuugani haddaad ka sare qaadatana uu ku dhacaya, haddaad ka hoose qaadatana uu ku dhacaya. oo qaabku u qormaya qaabkaasay noqonaysaa 1 plus x equal 2 times 4. qaabku u yaalun buu noqonayaa 2 times 4. haddaad hoosta qaadan lahaydna 2 times 2 bay noqon lahayd. marka 1 plus x equal 2 times 4, 1 plus x equal 8. x marka waa 8 minus 1 oo 7. jawaabtaadu markaa 7 bay ku soo baxaysaa. su-aasha tobnaad radioactive nuclide has a half-life of 4 days. radioactive nuclide ayaa half-lifekiisu yahay 4 maalmood. what fraction of original number of atoms will remain after 12 days? muxuu noqonayaa fractionka ama jajabka yar ee soo haraya 12 cisho dabadeed. marka tan oo kale laga shaqeynayo radioactive nuclide baa half-lifekiisu yahay 4 cishon baa lagu yidhi. laguma siin radioactive nuclideku intuu ahaa asalkiisa. marka waxaad odhan kartaa original numberka nuclide-ka aad haysata egas u qaado waa ma garanaysidba. waxaad leedahay remain after 4 days. 4 cisho dabadeed baaqiga soo haraya waa x divided by intuu ahaa oo laba loo qeybiyay. hal half life 4 cishaba half life baa dhacaya. 4 cisho kastaba half life baa dhacaya. marka dee uu sii half garoobaya divided by 2 baad oranaysaa. remain after 2 times 4 days yani 2 times 4 days waxa weeye 4 cisho labaad waa half life kii labaadna waa 8 cisho halkaas soo markaysid. waxaa soo haraya x divided by 2 power 2 2gaad halkaa ku dhufato halka waad ku jibaaraysaa. marka waa x divided by 4. remain after 3 days after 3 days after 3 days after 3 times 4 days weeyaan. ileen half life ku 4 days buu ahaa. half life ku 4 days buu ahaa. marka first day waa 1, second day waa 2 ku dhacaya, third day 3 baa ku dhacaya. 3 times 4 days yani after 12 days 12 cisho dabadeed baaqiga soo haraya 3 times 4 waa 12. baaqiga soo haraya 3gaad halka ku dhufataa 2gii waad ku jibaaraysaa. x divided by 2 power 3 marka waa x divided by 8. marka qoraalkaaga baad yaran nidaaminaysaa. waxaad oranaysaa waa 1 of 8 x oo macnaheedu yahay 1 of 8 of the original nuclide. original nuclide kaaga fractionka ka soo haraya waa 1 of 8 bay ka dhigantay. haddii kale qaacidada isticmaalaysayo qaacida markaad isticmaalayso ma haysano original numberkeeni. marka original numberka 1 baa loo qaataa, no1 baa loo qaataa. half life-ki waan haysa total time-kiisa waan waa 12 cisho 12 days baad u qaadanaysaa. half life-ki waa kana waa 4 days. marka after 12 days laakiin maxaa soo haraya waa n baa laynaga doonaya. qaacidada isticmaalaysaa odhanaysa n waxaa lagu helaa no times half to the power of t divided by 2 t divided by t. qiimayaashanaad markaa ku bedelinaysaa. n markaa waxay ku leegtahay n oo 1 ahayd into half lagu dhuftay 12 divided by 4. marka 12 iyo 4 ka isku qaybi waa 3. 1na markaad intan ku dhufato waa half ba ku soo haraya. intaadi waa half lagu jibaaray 3. intaadi marka waa 1 over 8. 1 haddaad 3 jibaarto waa 1kii, 2 haddaad 3 jibaarto laakiin waa 8. waa 2 times 2 times 2 waa 8. marka haddaad isweydiiso 1kan halkuu ka yimiday mar kasta oo aan lagu siin number of nuclideska original nuclideskaga 1 u qaado
taasaa markaa kaa caawinaysa inaad any number baaqi soo noqday ama kuu soo hadhay aad hesho. waay jawaabta su-aashu markaa waa 1/8. 1/8 waa sida. su-aasha 11aad dabcan halkan sida qoraalka haddaanan akhriyinba waxaad arkaysaa laba object ama laba quantity oo labaduba waxay leeyihiin electric field ay leeyihiin. marka electric fieldka x iyo electric fieldka y, x iyo y midkeebaa positive ah? labaduba positive saan aynu arkayno. waayo maxaan ku garanayaa field linesku way kasoo baxayaan, x-tu waa positive, y-duna waa positive. electric field lineski way kasoo baxayaan, markaa sidaa daraadeed waxaan x and y are both positive baan leenahay. waa sida jawaabti. in vacuum flask, falaasada caadiga aan wax ku shubanay la yidhaha vacuum flask, which process of heat transfer is reduced, processkeeba ama processkee heatka lagu gudbiyaa oo ay yareysaa by the vacuum layer, lakabka maranaha ah ee between the double glasses u dhexeeya labada qurwarood. ma wuxuu yareeyaa conductionka, ma convectionka, ma radiationka, ma evaporationka? si aynu garanayno dee conduction iyo convection labadaba uu yareeyaa oo labaduba jawaabtu sax bay noqonayaan. waxaa sii yara saxan oo xagga saxnaanta waliba aada ugu sii dhow conductionka. marka conductionka ayaynu qaadananaa oo 100% vacuum layerkaas yareynaya. su-aasha 13aad water is used to cool machines. biyaha waxaa loo isticmaalaa inay qaboojiyaan mashiinada. this is because sababta waxa weeye water is easily available, biyaha si fudud baa lagu heli karaa, waa liquid, waxay leeyihiin high specific heat capacity, waxay leeyihiin unusual expansion. jawaabta saxdeedna waa high specific heat capacity. biyuhu inay wax qaboojiyaan ama mashiinahaada ama wax kale ha ahaadee waxa u sahlaya ama u suuragelinayaa waxay leeyihiin high specific heat capacity bay leeyihiin. su-aasha 14aad shaxankan inoo muuqda baa layidhi muxuu taagayay? ma transistor ba, ma rectifier ba, ma transformer ba, ma amplifier ba? muuqaalkan wuxuu taagan yahay transformer. su-aasha 15aad a microphone converts sound or mechanical energy to electrical signal. microphone-ku wuxuu u bedelaa jabaqda oo mechanical energy ayuu u bedelaa electrical signal. this is an example of, tan waxay tusaale u tahay motor, generator, rectifier, galvanometer. midkay noqonaysaa jawaabtu waa generator. sababtaa mar hadduuba soundkii u bedelayo electrical energy yani electricity buu dhalinayaa, waa generator markaa. su-aasha 16aad laambad ayaa waxaa ku qoran label, waa qoraalun, waxaa ku qoran 100 watt. waa maxay warbixinta uu ina siinayo qoraalkani ee ku saabsan laambada? watt maxaa lagu cabiraa? power. powerkana maxaa lagu helaa? energy-ga oo loo qeybiyo time-ka. marka jawaabta halkan aad kala soo baxaysaa waa energy dissipated in unit time. waa energy-ga uu ay isticmaashay muddo go-an. marka power muddo weeyaan. marka energy per unit time oo powerkiya ayaa 100 watt inoo sheegaya. su-aasha 17aad the logic gate whose switching circuit is shown in the figure stands for. circuit-kani logic gate-kee buu taagan yahay? mar hadduu parallel yahay waa OR gate. su-aasha 18aad laba resistor ayaa loo xidhay si parallel sida shaxanka kaaga muuqda. total ama equivalent resistance-ka circuit-ku, total resistance-ku muxuu noqonayaa? dabcan markaad su-aasha noocan ka shaqeynayso mid waa inaad maankaaga gelisaa. marba hadday parallel yihiin total resistance-koodu waa inuu ka yaraadaa total resistance-ku waa inuu labadan resistorba ka yaraadaa. yani total resistance-ku waa inuu labadooda ka ugu yar xataa kasii yaraadaa. qaabkaad uga shaqeynaysaa waa qaacidada odhanaysa R1 R2 divided by R1 plus R2. marka halka waxay noo yaalay 6 times 12 divided by 6 plus 12 waa 27 loo qaybiyay 18. marka jawaabta eeda ayay ku soo bixi doontaa hadii Ilaahay qadaro. su-aasha 19aad how does resistivity of semiconductor depend on temperature changes? sidee baa resistivity-ga semiconductor-ku ugu xidhan tahay isbedelada temperature-ka? tana muhiim waxa inaynu isla garanno waa maxay resistivity. resistivity-ga marka la qeexayo waxaa la yidhaha waa the resistance of a wire of length 1 meter and cross sectional area 1 meter square. resistivity-gu waa resistance-ka wire dhererkiisu yahay 1 meter, cross sectional area-na tahay 1 meter square. marka halka waxaanu ka garanaa resistivity-gu waa resistance. marka resistance-ka iyo semiconductor-kana xiriirka u dhexeeya wuxuu ahaa hadduu semiconductor-ka temperature-kiisu kordho resistance-ku hoos buu dhici jiray. marka dee waa decrease as temperature rises. jawaabtu marka waa eeda ayay noqonaysaa. su-aasha 20aad
Speed of light in vacuum waa 3 times 10 to the power of 8 meter per second, and speed of light in water waa 2.25 times 10 power 8 meter per second. Calculate the index of refraction of water. laba speed baa layna siiyey, waxaa laynaga doonayaa index of refraction. wuxuun baad ka shaqayn kartaa tan haddaad xasuusan tahay qaacidadii. qaacida refractive indexku waxay ahayd speed of light in vacuum divided by speed of light in substance. marka labadooda baa la isku qaybinaya. speedka of light vacuum waa ka, substance-ka aad haysataana waa biyo oo waa 2.25 times 10 power 8. markaan labadooda isu qaybino 10 power 8 iyo 10 power 8 isku hoostaan waxay noo soo baxaya 1.333. jawaabta waad aragtaa baan filaya, marka waa C-da jawaabtaada. Part 2 qaybta structural questionska waxaan jeclahay laba su'aalood oo kaliya inaan ka jawaabno, inta kalena haddii la yiraahdo aynu yara kala qaybsano si inagana aynu ula socodka iyo ka falcelintuba inoogu fududaato. marka structureka qaybtan haddaan bilaabo waxaa la yidhi as the law waa eeda law of conservation of linear momentum, xeerka waaridda momentumka ama law of conservation of momentum waxaa loo yaqaano xisaab ahaan sidaana loo qori karaa waa m1u1 plus m2u2 equal m1 v1 plus m2 v2. su-aasha waxa weeyaan haddaba describe the law in words, xeerka bal kelmada ahaan ku sharaxa. markaad in words ku sharaxayso inta horena waxbay u taagan tahay, inta dambena waxbay u taagan tahay. waxay u taagan yihiin waa inta. qaybta hore waa total momentum before collision, qaybta dambena waa total momentum after collision. saasay markaa u kala taagan yihiin. su-aasha B-da waxaa la yidhi laba gaadhi oo labadooda maas kale yahay 1200 iyo 800 kilogram oo moving towards each other, midba midka kale uu kusoo dhaqaaqayo oo ku socda 20 meter per second iyo 30 meter per second si isku daba xigta ayaa isu dhacay. If the two cars are stick together, hadday labada gaadhi isku dhagaan and move in the same direction, isku jihana u dhaqaaqaan, calculate their common velocity, xisaabi bal velocity-ga ka wada dhaxaynaya. sida halkan aynu ka arkano labada gaadhi laba maas bay kala leeyihiin, laba xawaare kala leeyihiin, way isku soo dhaqaaqayaan sida la inoo sheegay baynu raacanaay. after collision waxaa la yidhi way isku dhigayaan, common velocity-na way yeelanayaan. marka inuu qaacidada ayaa jirta qaacido loo adeegsado marka la raadinayo common velocity-ga had iyo jeer ale. qaacidadaas maxayna odhanaysaa? qaacidadaas waxayna leedahay m1u1 waxay kula mid tahay m2u2, waxaa m1u1 loo geeyay m2u2 waxay kula mid tahay v into m1 plus m2. marka aad nidaamka raacinayso ama aad nidaamka leedahay qaacidadan markaa haddaba waxaad odhanaynaa bal ku bedelo labada gaadhi. m1 waa gaadhiga hore maaskiisa waa 1200, m2na waa gaadhiga labaad maaskiisa waa 800. maasku kilogram ba lagu cabiraa. u1na waa gaadhiga hore xawaarihiisa waa 20, u2na waa gaadhiga labaad xawaarihiisa waa 30. markaynu ku wada bedelano sana markaynu soo baxaysa, markaynu qiimayaasha xaraf kasta qiimihiisa meeshiisa dhigno. marka labada horena 1200 kuna 20 ku dhacaya, 830 way ku dhacayaan, labadana way isu geysmayaan dhexda ee bracket ku wada jira. marka ay noo soo baxay 420 kuna loo geeyay 420 waxay la mid tahay labada marka la isu geeyo waa 2000 oo lagu dhuftay v. labada marka isu geeyso waa 84000 ay ku soo bixi doontaa, waxay kula mid tahay 2000 v. dhinac walba 2000 marka aad u qaybiso velocity marka wuxuu ku soo baxayaa 24 meter per second. dabcan waxaynu xeerka u raacnay sida ay su-aashu u qoran tahay. waxaa laga yaabaa in ardayda bari yiraahdaan jawaab ka duwan baan hayaa oo waa suuragal aniga marba zero ii soo baxday, laakiin waxaa dhici karta haddaad u raacdo oraahda lagu siiyay. oraahdana muhiim ah inuu aynu raacno. waxa laba gaadhi iska hor imanayaan labadooda momentum haddaad eegto way isleeyihiin. caqligu wuxuu ku siinaya inay labadaba istaagayaan, laakiin oraahdeenun baynu inagu tixgelin siinaa oo ina odhanaysaa stick together, way isu dhigeen, move in the same direction, dhinac bay wada dhaqaaqeen. bal inta jeera oraahoodil common velocity bay yeesheen, marka tixgelin baynu oraahdaa siinanaa. that's why aanu qaabkan uga shaqaynayno. su-aasha siid waxay odhanaysaa quantity-ga ama xajmiga inoo sheega how hard a force acts, siduu u adagaya xoogu ama force-ku. quantity-gaasi qaacida ku siisa odhanaysa waa force times time, ft. this quantity is known, xajmiga waxaa loo yaqaanaa moment iyo momentum iyo impulse. jawaabtu waa impulse. qaacidaduna eg qaacidada force times time, impulse baa laga qaacidadaasi. su-aasha labaad 3 lamps are arranged in series, 3 laambadood ba qaab series loo dhigay sida shaxanka kaaga muuqda. laambad waxa ku xidhan battery 6 volt ah iyo ammeter oo ina siinaysa current-ka meesha maraya oo ah 0.5 ampere.
su-aalaha haddaynu u nimaadno eeda waxaa la describe two disadvantages of serious arrangement of lamps. laba khasaare oo marka laambadaha serious loo xidho ay leeyihiin ayaa laynaga rabaa. laba khasaare oo laambadaha marka serious loo xidho. laba khasaare waxa weeye kow waa less brightness than parallel lamps. horta way ka iftiin yaryihiin, way faa'iido darradu markaan sheegayno way ka iftiin yaryihiin kuwa parallelka ah. laba, if one is disconnected, haddii mid meesha laga saaro ama dabka laga jaro, the others will go out. inta kuwa soo hadhayna way baktiyayaan, baaqigu way baktiyayaan, way isku xidhan yihiin. haddii mid gubato inta kale way gubanayaan. ereyadan aan ku qoray maaha netkii ama jawaabtii kama dambaysta ahaa. qofku kelmado uu leeyahay buu isticmaali karaa oo jawaabta xataa tan ka duwan, laakiin waa ina sax ahaato jawaabta oo la doonaya. su-aasha bida waxaa lagu yidhi voltage across circuit, a circuit is proportional to the current. voltageka circuitku wuxuu directly proportional leeyahay currentka, oo macnaheedu waxa weeye v divided by r I waxay leegtahay r. this rule is known as, xeerkan waxaa loo yaqaanaa, jawaabta waxa weeye Ohm's law. qaacidada xeerkeena siiya waxaa la yidhaha Ohm's law. su-aasha sida isticmaal baa lagu yidhi xeerka si aad u calculate garayso resistance-ka laambadaha. marka resistance-ka si aan u calculate garayno ogow voltage-kan sanaa 6 volt buu ahaa, current-keenu 0.5 ampere buu ahaa. qaacidadan isticmaalna waa qaacidadaasi. marka qaacidadii baad marka hore qoranaysaa, waxaad leedahay r waa v divided by I, dhinaca doontaba u qoro, laakiin v-dana qiimaheeda ku bedel, I-na qiimaheeda ku bedel. v maxaan ku bedelanaa 6, I-na waa 0.5 ampere, isku qayba waa 12 ohm. su-aasha d-da marka waxaa lagu yidhi given that all three lamps are identical, waxaa lagu siiyey saddexda laambadoodba waa identical baa lagu yidhi. identical way isku egyihiin, saddexda laambadood waa isku current, waa isku resistance. marka calculate the resistance of each lamp, laambad kasta resistance-keeda soo saar. su-aasha saan uga jawaabno, mar haddii total resistance-kooda uu ahaa 12 ohm, saddex laambadoodna ay ahaayeen, de laambadiiba waxay yeelanaysaa saddex unu qaybi, laambadiiba 3 ohm bay qaadanaysaa. marka waxaad oranaysaa resistance of 3 lamps waa 12 ohm. resistance of one lamp, halkii laambado resistance-keeduna waa 12 oo loo qaybiyay saddexdoodii laambadood. 12 ohm oo loo qaybiyay saddexdoodii laambadood waa 4 ohm ayay ku noqonaysaa. su-aasha labaad ayaynu ku daysanaynaa, waynu yaro kala jajabsananaa si aanu inoogu dheeraanin oo long video aanu inooga noqon. wixii tala iyo tusaale ah gmail-ka aan hoos idinku qora ayaad igu soo qori doontaan haddii ilaahay idhaahdo. wixii aad ku biirinaysaana de waad kusoo idinkoo kasoo shaqeeyaba waad soo raacin kartaan haddii ilaahay idhaahdo. wixii qaladeed aragtaana waad soo sixi kartaan, waa inaynu ku dari doonaa insha allahu qeybta labaad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.